waxaa naga wada go-aan wadankeenu isbedel dhaba inuu yimaado in ay noo timaado haddii lahayd ma dowlad danta soomaaliyeed danteeda ka shaqeynaysa caqabadihii jiray iyo meelahan ka ragaasanayd wax ka qabanaysa aan ilaahay ugu duceyno xildhibaanadeena la soo doortay inay noqdaan dadkii wadankooda badbaadiya wadankoodana u jeheeya dhinacii ay ku badbaadi lahaayeen caafimaad iyo barwaaqi iyo nabad. su-aasheeda koowaad mudane musharaxa madaxweyne kolley deysaan wada ogsoonahay hawl kasta oo dowladda federaalka ah ay ku dhaqaaqdo ama maaragtay ay damacad inaga geliso caqabada koowaad ee hor istaagta waa maamul goboleedada. ka musharaxaan maxaa kaaga qorshaysan awoodda maamul goboleedada siday hadda ku socdaan waxay isticmaalaan dadka dhan ay wada ogsoon yihiin awood buuxdo oo madaxweyne weli waxaa loogu dhawaaqaa madaxweyneyaal hal qof hal cod waa dowladda Soomaaliya. haddii laga bilaabo maamul goboleed kasta oo dadka loo ogolaaday inay isdiiwaan geliyaan qaranka oo dhan baad boodista hadday isdiiwaan geliyaan yay u dooranayaan xildhibaankaad u maleynaysa yay u dooranayaan baad u maleynaysa xildhibaanadii soo xuleen xitaa hadday dastuurkooda bedelaan oo toos uga codayaan madaxweynaha gobolkooda waa samayn karaa. laakiin haddii xildhibaano badan oo caafimaad qabo oo si wanaagsan lagu soo xulay waxay keenayaan gobernatore ama madaxweyne keenayaan. arrintaa ay ka mid tahay dastuurka oo aanina lahaa dastuur dooqan soo jeedinana annagu waxaan aaminsanahay in la yidhaaho governor waxa weeyaan dunidao dhan bay u shaqeysaa waxa weeyaan madaxweyneyaal isgarbarooda iyo dunidao dhan baa ku wareertay. markii heritage foundation ay ku qabatay meesha la yidhaaho puntland sanadkii la soo dhaafay maaragtay ku qabteen su-aal baa waxaa la weydiiyey 3 madaxweyne maamul goboleed baa joogay madaxweyne qoorqoor buu haddaan xasuusto wuxuu yidhi isagoo waftiyo diyaarad la socday buu wadan buu tegey markaasaa la yidhi madaxweynihii halkan waxaa maraya galmudug oo president oo galmudug markaa qoladii airbortka soo daweynaysay protocolka intay wareereen madaxweynihii soomaaliya jooga bibiyaa bay yidhaaheen markaasuu wuxuu yidhi anigii baaba yaabo embarrassing noqday wuxuu yidhi waxba kama qabo governor haddaan noqdo buu yidhi waxaan kuu sheegayaa kii baawrka ku fidhiyay baaba arkay dhibtay leedahay baanku oo u jeeda marka taasina laakiin waa wax gacanta soomaaliyeed ku jiro referendumka hadday soomaalida u foodo baawrku gacanta soomaaliyeed buu ku jira oo odhan kara waxaan u codaynay dastuurka waxaan qaadanay governor inaan nahay waxaan kale aan go-aanay in dowladda dhexe ee federaalku arrimaha dibadda mas-uul ka tahay madaxweyne goboleed hadduu rabo trade waxa la yidhaaho oo regionska dunida oo dhan iyo maraykanka iyo dunia kasta regionadu trade way la galaan wadamo oo ganacsi way la galaan waa trade laakiin siyaasad iyo policy iyo madax wadan ay la fadhiistaan waxaasi ma jiraan. arrimaha difaaca dowladda federaalka iskale arrimaha immigrationka dowladda federaalka iskale waa wax universal wax Soomaaliya u khaasa maaha waa siday dunidu shaqeyso. anigu waxaan aaminsanahay dariiqaasi ka saxa inuu yahay baan aaminsanahay. su-aasheeda koobaad waxaa dhahday doorasho badban waa diidanta tahay qaabka lagu soo xulay xildhibaanada waa ka dayrisay maxaad u sugi laadahay inta one man one vote la gaarayo so that rajadaada ay u ficnaato markaas maadaama aad tanba diidan tahay ma sugtid inta la gaarayo one man one vote. anigu waxaan aaminsanahay in xildhibaanadaasi oo aan rajeynayaa inay noqdaan kuwa garta xaaladan khatarta iyo marxaladan adag ee waddanku ku jira hadda garanayana maanta in ay ilaah ka sokow door weyn ka ciyaari doonaan waddankani jihadu u dhaqaaqi lahaa iyo inuu ka bixi lahaa godka uu ku jiro inuu ka bixiyo in kale iyakabaa runtii door weyn ka ciyaari doona. su-aasha hortaagan waa iyaka challenge-ka ama maaragtay waa arrin hortaala kitaabka jaamaca bay gacanta saareen waxaa jira wiilal ka yar iyaka oo ka cilmi yar oo aan dunida aqoonin oo la odhan jiray SYL oo 13 baa Soomaaliya xornimada iyo midhaha aan guranayno iyakaa dhaliyey iyaku miyay ka liitaan kuwaas. aniga waxaan aaminsanahay in ay samayn doonaan wixii sax ahaa
waxaan aaminsanahay taariikhda soomaaliya way qori doontaa, qeyb weyn bay ka ciyaari doonaan, soomaalina waa xasuusan doontaa. awoodooday ku jirtaa inay wadankan ciddii ay u arkaan inuu ka saarayo dhibtan uu ku jiro hoggaan isbedel doon dhab a wadankan u keena. arrintaasi waa arrin ay sameyn karaan, si kastoo loo soo xulay marka dambe iyakaa madax bannaan. marka ay galaan meeshaas codka ay ku bixinayaan iyakii ilaahooda un mooyaan waxay sameynayaan. marka anigu waxaan qabaa kama rajo beelin inay wax saxa sameynayaan baan aaminsanahay. taa intaasaan uga baxaya. su-aasheeda labaad, dhalinyarada africa wax ku baratay lama siiyo maaragtay waxay mudnaayeen. inta badan dhalinyaro qurbaha ka timid oo baasaboor ajnabi wadato baa xilalka dowladda ugu sarsareeya. dhalinyarada africa wax ku baratay xuquuqdooda maxaa kaaga qorshaysan? anigu waxaan aaminsanahay in ay noqoto yardstiga ama waxa lagu qiyaasayaa waa excellence iyo waxaa taqaaniin iyo karti iyo xirfad. xirfadaadu markaa hadda dowladda kale haddaan kuusoo qaado, dowladda federaalka civil servantka ama dadka shaqaalaha professionalska oo ka shaqeeya, imtixaanaad jira dunidao dhan la wada maro, dunidao dhan waddan kasta waa leeyahay. marka meeshan wax ku soo baratay waa haddaad maadadaad soo baratid iyo imtixaanka aada geshid aada ku guulaysatid, macno ma sameynayso meeshaad ka timi ama gobolka waddankaad wax ku soo baratay. xirfad ma leedahay, imtixaankaa ma baasgaraysay, qualificationkeedii ma leedahay. taa weeyaan runtii marka dambe waxaasoo dhan baabiinaysa. taa intaasaan uga baxaya. su-aasheeda saddexaad, inta badan wasiirada ugu badan ee dowladda federaalka ay soo xusho waa xildhibaano. dad badan oo maaragtay baahiyaha buuxin karana ummadda soomaaliyeed ay ka buuxaan. taana maxaa kaaga qorshaysan? xildhibaanadu wasiiray u badan yihiin. arrintaas waxa ay qeyb weyn ka tahay nidaamkanan hadda ku jirno oo ah waataan inii sheegi ra-iisal wasaare kasta waan xasuusta anigu ra-iisal wasaarehaygi khayr wasaare kasta marka uu bilaabo xidiguhu arka wuxuu leeyahay historyga soomaaliya ku qoraya, wuxuu isleeyahay wax dhis kaa dhis. marka uu 2 bilood joogno la yidhi booshin baa lagaa keenay, markaasuu jahwareer baa ku dhaca. markaasuu wuxuu maaragtay oo meeshiiba haddaan hawsheedii bilaabee goormaa laii keenay mooshin. xildhibaanadii markaa maxay u riixdaa inay ka soo buuxiyaan xildhibaano si uu u helo maaragtay margin groofa oo markaa ay arag tahay mooshin si lagaaga keeno. marka siyaasadii gurcaneyd bay ra-iisul wasaarihii waxay u riixday inuu xaggaa geeyo. waxaan aaminsanahay solutionkeedii xaq wuxuu yahay haddii loo ogolaado nidaam dastuuriya, dadku u foodaan bresharka iyo waxaasoo dhan. anigu waxaan aaminsanahay kaa madaxweyne ku-xigeenka 4 sanadood loo ogolaanayo, ummadda soomaaliyeed fursad siiyaan, isqabqabsigu yaraado, madaxweynuhu kaabinetkiisa soo xusho. ma oran kartid waa arrinaan anigu maaragtay waa maskax furan. anigu ma oran kartid hadduu jiro dad xildhibaanoo soo gala wadamo badan oo dastuurkooda ay ku qoran tahay. dastuurkeena aan ku qori karnaa, dastuurka la sameynayo la oran karaa ra-iisal wasaaraha wasiirada iyo xildhibaanadu separate waayihiin. wadamo ogolaadaha jira oo laakiin waa parliamentary system oo prime minister oo kale leh. marka arrintaasi waa arrimaha muhiimka aan aaminsanahay in dastuurka cusub arrimaha adres gareeyo. waayo tanaan hadda inoo qoran inoo taala waa nidaamka la leeyahay waa inaan ku dhaqanaa kii 4.5 kii waa inaanan jabinin oo wuxuu ahaa. laakiin arrintaasi waa arrinaan anigu aaminsanahay inay dhib weyn u keenayso ee dowladda u keenayso. su-aasheeda afraad, iyadana maxaa kaaga qorshaysan? caqabada ugu xunay taagan waxaa weeye nin caafimaad soo bartay baa wasaaradii gaadiidka ka shaqeynaya ama beeraha, isagoo loo fiirinayo markaa wasiirka meesha joogo oo ama isku qabiil yihiin ama isku hayb yihiin. taana maxaa kaaga qorshaysan? aad baa umahadsanta. waxa weeyaan waa cudurkeena haya, waa cudurkeena haya. maaragtay waxa ay loo geenayaa, waxaa lagu leeyahay haddaan anigu intaa dowladda ku jiraan arkay safiiraa dad lagu qoray waxa lagu leeyahay 4.5 baa lagu geey. waddan waxaa lagu geenayaa
siyaasadda iyo waxa saameyn weyn inoo dunida waxa ka socda dee qof aan diyaar ahayn dunida la soconin waddankaa luuqadiisa aqoonin inakay lugtaan iska tooganana marka waxaasi waa waxayna baabi'iyey waxa weeyaan qof kastoo soomaaliyeed waa in albaabada loo furaa waa in la dhiirigeliyaa laakiin aan siino xirfaday u baahnaayeen aan siino tacliintay u baahnaayeen aan siino tababarkay u baahnaadeen kii soo baxa oo markaa ku soo baxa dee qof kasta wuxuu xitaa xaasidnimo iyo cugdad kama qabo waayo wuxuu ogyahay qofkaasi in habeen iyo maalin uu shaqeynaya haddii aad nidaam ka wadid waa maxay sababtaad habeenkii ilaa 12 habeennimada wax u akhriyaysaa haddii aadan qiimo ku fadhin waxaad soo baratay qof kaloo caafimaadka qaba la geeyo fiilkaas petroleum engineeringkaad soo baratay maxaad iskuul u tegaysaa waa waxayna baabi'iyey oo waddankeena la tegay marka anigu waxaan aaminsanahay wax kasta gacanteena ay ku jiraan waa waxay dadka soomaaliyeed wax ka qaban karaan laakiin wax kasta waxay ku soo biyashumayaan dadka soomaaliyeed talada ha lagu soo celiyo nidaam dimuqraadi ha noqoto dadku ha xusheen dadkay doonayaan waxa saxa waa soo baxayaan anigu saasaan aaminsanahay miyaan ka tegay su-aal kale su-aalahaad weydiiseen su-aalo waxa weeyaan muhiim ah waana su-aalaha dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin xaqna u leeyihiin murashax kastoo madaxweyne ordaya waddankan in la weydiiyo waayo si kasto aad adigu qorshe usoo dejisid aad leedahay waad garanaysaa su-aalo badan iyo waxyaalo badan aadan eegin baa jira su-aalaha qaarkood waxaa jira oo laftoodu jawaabteedu waxaa laga yaabaa inay yaro naaqus tahay waa ka fakeraya waa rifaan gareynaya inaan maaragtay eego wixii saan maaragtay wax ugu kordhin lahaa aad baanan uga faa'iidaystay idinkuna waxaan rajaynayaa inaad fursad hesheen aad iyo aad waxaan mahad celinayaa Saciid oo inoo soo qaban qaabiyey oo xafladan inoo sameeyey waxaa kaloo aan u mahad celinayaa dhammaantiin waxaan rajaynayaa isku meel baan u soconnaa waxa aan ka wada simanahay oo guddigan halkan haddaan isku dayo inaan maaragtay privilege ka qaato aan munaasib ahayn waxaan naga wada go-aan waddankeenu isbedel dhaba inuu yimaado in ay noo timaado haddii lahayd ma dowlad danta soomaaliyeed danteeda ka shaqeynaysa caqabadihii jiray iyo meelahan ka ragaasaneed wax ka qabanaysa aan ilaahay ugu duceyno xildhibaanadeena la soo doortay inay noqdaan dadkii waddankooda badbaadiya waddankoodana u jeheeya dhinacii ay ku badbaadi lahaayeen caafimaad iyo barwaaqi iyo nabad lagu heli lahaa waana salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu